assalaamu calaykum. jasiiradda carbeed waa deegaan macne gaara samaynaya maadaama xarameynkeennii iyo muqadasaadkeennii ay ku yaallaan marba marka ka dambaysa waxyaabaha ka dhacaya ee argagaxa qalbiyada ummadda islaamka ku dhalinayaana ma aha wax la xamilayo laakiin waxaynu kaga lidaynaa wax kasta oo ka dhacaya jasiiraddaasba xadiiskii nebigeenna sallallahu calayhi wasallam ee ahaa calaamadaha qiyaame waxaa ka mid a in jasiiradda carbeed ee saxaraha ahi ay kaymo iyo dhul dhirle dib ugu laabanayso webiyaduna ay qulqulayaan iyo sidoo kale in jasiiradda carbeed aysan macaabudnimadii dib ugu laaban doonto inoo keena daba dhacdooyinka ka dhacaya deegaankaas maalmo dhoweyd ayaan daawanayay nin dhallin ah sacuudi ah sida ka muuqatay oo baaqaad u xanuun badan diraya isaga oo leh culimmada ummadday 30 sano ka hor waxyaabo iska caadiya ayaad xaaraantinimayseen ummaddana aad ku adkayseen gabadha codkeeda waa cawra ayaad tidhaahdeen oo hadalka waad u diideen tiifiga daawashadiisu waa xaaraan ayaad tidhaahdeen waxyaabo badan oo caadi ah ayaad sidaas ku xarrimteen markii ay xaaraantii dhab tahay timi ee lala soo bambaxayna waad ka aamusteen ilaahay ka cabsada oo ummadda xaqa u bayaamiya waa yahay waxaa maanta marba marka ka dambaysa jasiiradda carbeed ay u sii mudhuxsanaysaa dhanka soo waarididda iyo keenista sanamyada iyada oo ummaddaas jasiiradda ku nool culimmadoodii xaqiiqiyiinta ahayd ee dhabta ahayd xabsiyo lagu guray kuwa culimo ku sheegiyo u badan ama culimmada ku tasbiixsada hadalka salaadiinta hadba meesha ka talisana culimo looga dhigay oo waxaas dhacaya laga aamusan yahay waxaa loo sameeyey sacuudiga waax la yidhaahdo haayadda madadaalada attarfiih oo magacaasa in shacabka la madadaalinayo lasoo dhexgelinayo wax kasta oo xumaan aha oo deegaankaas ka dhowrnaa deegaankaas ka xarrimnaa sanamyadaasina ay safka hore kaga jiraan 2019kii waxay qabteen haayadku sheegtaasi waxay ugu yeedheen xilliga riyaad mawsim riyaad oo lagu soo bandhigay bandhigyo kala duwan waxaana ka mid ahaa wax loogu yeedhay maharajaanka argagaxa sanamyadan idin hor yaallo oo maharajaan ahaan looga jeeday ayaana la keenay waxaana ay ahayd markaas 2019kii waxaana uu maharajaankaasi u dhigmayey halloweenka galbeedka ee isagana muuqaalada argagaxale la samaysto balse markaa shacabka aad uguma aanay duxin oo fidrada dadka ayaa noolayd oo diiday badanka waxaana dhacdayba in la burburiyey sanamyadaas maharajaanka lagu sheegayey iyadoo xilligaas xataa dowladda sacuudigu aanay garanaynin cidda burburisay sanamyadaas isla maalmahaas 2019kii waxaa la keenay sacuudiga kooxda BTS oo iminka in yar u jiraba in loo magacaabo ilaahyo inay yihiin oo dhedigaynta ragga iyo dhankaas hadda caalamka loo sii wado u janjeedha halkaasna dhalintii deegaankaas xarameynka mas-uuliyaddiisa qaadi lahaa lagu mashquuliyey dhowaan halloweenkii la qabtay ee aynu barnaamijka halkan kaga soo tabinayna wixii ay dadka sacuudiyaanka ay samaynayeen waynagii aragnay sida ayba baraha u dheer yihiin dadkii asalka u lahaa waxaanay galbeedka ahaa waxaa sidoo kale lagu casuumay sacuudiga koox dumar yaryar ah oo heesa oo iyaguna taageeraha amaanadnimada khaniisnimada iyo dhankaas dadku ay wada yaacayaan sacuudiga ayaa lagu casuumay oo dhalintiisa la doonaya in tusaale ay ku daydaan looga dhigo waa dumar yaryar oo kooriyaana oo la yidhaahdo Rosie Blackpink magacaas ayaa kooxdooda la yidhaahdaa waxaana ay caan ku yihiin inay u ololeeyaan in qoomo luudya la wada noqdo haddana waxaa lagu casuumay caasimadda sacuudiga ee riyaad ujeedka laga leeyay talo waa maxay hadda meelo socotaa inoo kan dhanka imaaraadka waxaa maalmahanba ka socday maalmahan bayaanan odhan ee dhowaanahanba ka socday hadba in la keeno sanamyo kala duwan oo magacyo kala duwan loogu yeedhayo laakiin markanaan sida sacuudiga ahayn sanamyo maharajaan iyo xaflad iyo tarfiih iyo madadaalo loogu soo gabanayo ee ah sanamyo loo keenay in la caabudo in la caabudo cibaadadii caadiga ahayd miya cibaado la caabudo loo keenay bishii February 2018kii ayaa laga dhisay imaaraadka macbadkii ugu horreeyay ee siikha dadka diinta siikhiyadda ee hindiya caanka ka haysta waxaa sidoo kale la keenay imaaraadka sanamka buuda buddhismku sanamka ay caabudaan oo laga taagay weliba meel dariiq caama haddana waxaa la keenay sicii ay hinduusku caabudi jireen oo inta hindiya laga keenay imaaraadka la keenay macbad hinduusi aana halkaas looga dhisay waayahay haddii ay ummadaha sanamyadaas caabuda halkan ku dhaqan yihiin maxaa diidaya in diintooda ay si xorriyadla u wataan waa su'aal aad u muhiima laba qodob oo laba daraf kale ah ayaa weydiintaas hor yaalla midi waa mide cid kasta waxa ay aaminsan tahay xaq ayay u leedahay in loo daayo oo cibaadadeeda ay u madax bannaanaato laakiin weynaynta maamuusidda iyo karaaminta saayidka ee loo samaynayo ayaa ah cilladda qolyaha jasiiradda ka talinaya haysata oo waxaad mooddaa in laba wax la isku qasayo oo kale ah caqiidada iyo la dhaqanka dadka war caqiidadu waa misalo la dhaqanka dadkuna waa misalo kale caqiidooyinku ma heshiiyaan isma waafaqi karaan misna ma wada fadhiisan karaan oo isma maamuusi karaan oo iyaga ayaaba isburinaya haddii caqiidada islaamku ay ku fadhido laa ilaaha ila allah caqiidada hinduuskuna ay sanam iyo sa caabudayaan ma heshiin karaan oo labadooda midibata kale ayay burinaysaa haddii caqiidada islaamku ay ku fadhido ciise inuu yahay nebi caqiidada kiristankuna ciise inuu yahay ilaah ma heshiin karaan oo midibata kale ayay burinaysaa caqiidooyinku ma heshiiyaan mana iswaafaqaan
waana halka ay higsanayso aayadda ah lakum diinukum waliya diin. dhankaasi waa dhanka aaminaadda iyo caqiidada. dhanka la dhaqanka dadka marka ay tahay wax kasta oo wanaag iyo macruufa oo qofkaas idinka dhexayn kara waxa uu doonaba ha aaminsanaado waad kula dhaqmaysaa. wixii aad isku maandhaaftaan ama caqiidooyinkiinnu ay ku kala tagaanna aayar ayaad ku kala tegaysaa. hunduusku isagoo si ciise u sujuudaya adiguna aad ilaahaaga u sujuudayso, haddana waad wada noolaan kartaan oo ganacsi, sheeko, asxaabnimo iyo wada macaamil weydin dhex mari karaa. intaas marka aynu fahanno, caqiidadu tanaasul iyo heshiis ma taqaano. laakiin qofka kaa caqiidada duwan, wixii aan caqiidadaada iyo iimaankaaga liddi ku ahayn, waad ka wada tacaamuli kartaan. qodobka labaadna waa in sanamyadii jasiiradda carabeed lagu caabudi jirayba ay qaabkan ku yimaadeen, oo iyadoo dadka jasiiradda ku dhaqani ay yihiin muwaxidiin ilaahay keligii caabuda, ayuu Nishaam aaday oo uu soo arkay sanamyo la caabudayo, markaasuu jeclaystay. aayar buu sanamyadii keenay jasiiradda iyo Makaba. sidaas ayay cibaadada sanamyadu ku faaftay. haddii markaad dhayeelsanayso in jasiiradda carabeed maanta sanamyo la caabudayo la keenay, yara sug muddo kooban, maalin dhow ayaad arki doontaa dhalin dalalkaasu dhalatay oo carab muslimiina oo sanamkaas buuda iyo saca sinduuska u sujuudaya. dhankaasi waa dhanka kale ee astaamaha qiyaamaha ee jasiiradda carabeed ka soo ifbaxaya markaynu u nimaadno. waxa uu xusay nabigeennu sallallahu calayhi wasallam in jasiiradda carabeed ee sidaas oo dhan saxaraha u ahi ilaa ay ku laabato kaymo iyo dhirley, webiyaduna ay qulqulaan, inaanu qiyaamuhu dhacaynin. muuqaaladan ay biyuhu qulqulayaan waa saxarihii carabta ee qalalnaa, engegnaa, halka webiyada caalamku ay sii qalalayaan, ka bilow Furaat iyo Dijla ilaa kuwii Yurub ee Ingiriis, Jarmal iyo Talyaaniga. halka webiyadaasi ay ka qalalayaan ayay Sacuudiga, weliba saxarihii Rubcul Khaali oo ah saxaraha ugu badan ee tamuux iyo ciid weyna adduunka, ay tugagaasi ka jeexmeen oo ay webiyo noqdeen. horena baraf ayaaba uga da'ay Sacuudiga. saxarihii kuleylka aynu ku naqaanay ayaaba baraf yeeshay. jasiiradda carabeed hore waxay u ahayd deegaan webiyo iyo kaymo ah, laakiin nabaad guur ayaa ku dhacay. wax allaale iyo wixii dhir ahaana way dhinteen, xayawaanadiina way iskaga hayaameen. in jasiiradda carabeed ay sanamyadii ku soo laabteen iyo inay cagta saartay dhabbihii kaymoolinimada oo webiyo ay saxarihii ugu badnaa ee tamuuxda lahaa qulqulayaan, waa laba ka mid ah calaamadaha waaweyn ee qiyaamaha ee uu nebigu sallallahu calayhi wasallam sheegay inaanu qiyaamuhu dhacaynin ilaa ay jasiiradda carabeed ku laabato kaymalaynnimadii oo ay webiyadu qulqulaan. labadaas calaamadood cid kasta oo culumta aakhiru samanka daraasaysa argagax badan ayay ka qaadeen. waxaana sii raaca webiga Furaat iyo Dijla oo qalalay. qalalkaasina maaha mucjisada, mucjisadu waa in webigaas Furaat markuu si wacan u qallalo ay ka soo baxayso buur dahab ahi, buurtaasna ay dadku isku laynayaan. webiyadaasi markaa hadda waxay bilaabeen inay biyahoodii yaraadaan. aqoon-yahanada culumta dhulkuna waxay xuseen in 20 sano gudahood ay webiyadaasi khadka ka bixi doonaan gebi ahaanba. waxaana webigaas Furaat ka soo baxay magaalo webiga ku hoos aasnayd, oo webigaasi markii uu qalalay soo baxday halkaas oo laga raadraaci karo kansiyo iyo kaydad dahaba oo qarsoon. waxyaabahaas oo iswata ayaa muujinaya in astaamihii waaweynaa ee qiyaamaha qaarkood ay soo daahireen, jasiiradda carabeedna weliba si gaara ay uga soo daahireen. wasalaamu calaykum.